bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wanaagsan daawadayaal waa ayaan loo idila socodsiinaya wararkii ugu dambeeyey arrimaha Soomaaliya iyo caalamka qodobada waddanka TV ku daawan doontaana waxaa ka mid ah Kenya oo afka furatay caalamkana u qeyla dhaamisay iyadoo oranaysa Soomaaliya waxa ay ku soo xadgudubtay madaxbanaanida gayi ee Kenya sidoo kale isla Kenya oo bilowday qorshe ay guud ahaanba ciidamadeeda uga baxaysa Soomaaliya Pakistan oo ka qayb qaadanaysa dhismaha ciidanka cirka Soomaaliya garoonka Stadium Muqdisho oo caws dhigistii lagu bilaabay cudurka coronavirus oo saameyn xun ku yeeshay dhaqaalaha caalamka Joe Biden oo guul weyn ka gaaray doorashada isreebreebka xisbiga dimuqraadiga ee Mareykanka dalal Carabaha oo dhisaya isbahaysi xoogan oo ka dhan ah qorshaha Erdogan Turkiga oo diyaarada dunida ka yaabiyay ku duqeeyay xarumaha ciidamada Syria iyo Mareykanka oo weerar dhanka cirka ah ku qaaday maleeshiyada Taliban qodobadaasi qodobo kale ayaad waddanka TV ku daawan doontaan waa Khamiis taariikhdu ku beegan tahay 5 Maaj 2020 iminkana u diyaar garooba qodobada warkaas oo fidsan haddii aad nagu cusub tahay daawade subscribe saar waddanka TV oo program baleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada wararka tayada leh aynu halkaan idiin soo gelino haddii saaxiibadeena nagu tixana ka mid tahay la wadaag saaxiibadaada kale si saaxiibadeena cusub uga mid noqdaan laegtana ha naga hilmaamina aan ku bilaabo marka hore madaxtooyada Kenya ayaa soo saartay bayaan ay uga hadlaysa xadgudub ay sheegtay in ay Soomaaliya u geysatay dhulka Kenya iyo madaxbanaanideedaba saxaafeedkan oo lagu daabacay bogga Facebook ee madaxtooyada Nairobi ayaa lagu sheegay in maanta oo Khamiis ah taariikhduna ku beegan tahay 5 Maaj 2020 uu dhacay kulan qaas ah oo yeeshay golaha amniga qaranka ee Kenya kaas oo shir gudoominayay madaxweyne Uhuru Kenyatta shirkan ayaa sida ay madaxtooyadu sheegtay lagu falanqeeyay arrimo ay ka mid yihiin bayaan ay 5tii bishii February ay soo saartay dawladda Soomaaliya eedeymo uu Kenya u jeediyay safiirka Soomaaliya ee Mareykanka Abuukar Daahir Cusmaan xilli uu ku sugnaa magaalada New York 27 bishii February 2020 iyo weerar aan ogolaansho loo haysan oo ay dawladda federaalka ay ku qaaday dhulka iyo madaxbanaanida Kenya taariikhdu markay ahayd 2 bishan Maaj 2020 golaha amniga qaranka waxa uu muujiyay walaac ku aadan xadgudubka ay ciidamada xoogga dalka federaalka Soomaaliya ay 2 bishan Maaj 2020 ay u geysteen dhulka iyo madaxbanaanida Kenya halkaas oo ay ku xasuuqeen ciidamo fara badan oo ay Kenya leedahay Kenya ayaa sheegtay in aysan wax jawaab ah ka bixin ficilada ay ku eedeysay dawladda Soomaaliya taas beddelkeedana ay isxakamaysay iyadoo eegaysa xiriirka soo jireenka ee dhaqanka iyo waliba nabad ilaalinta ee u dhaxeeya labada dal dhinaca kale tan Kenya waxa ay si kulul uga jawaabtay eedeymaha uga yimid dhinaca Soomaaliya waxaana war-saxaafadeedkani lagu yiri dhaleecaynta aan sal iyo raadka lahayn iyo waliba eedeymaha ay soo jeedisay dawladda Soomaaliya oo ah in Kenya ay faragelisay arrimaha gudaha Soomaaliya waxa ay qayb ka yihiin ficilada guracaan ee isdaba joogga ah taasoo Soomaaliya ay ku banaysanaysa in ciidamadeena ay ku soo weerarto dhulkeena ay ku qabsato dab ahaantii waxa aan ku dhiirigelinaynaa dawladda Soomaaliya in ay joojiso ololaha noocan ah ayna xooggeeda iyo waliba tamarteedaba isugu geyso sidii ay hoggaan fiican u yeelan lahayd ugana shaqayn lahayd horumarka dalkeeda waxa kale oo lagu sheegay in Kenya ay dadaal badan iyo waliba dhaqaalaba gelisay sidii ay Soomaaliya u heli lahayd nabadgelyo ayna hadda ay ku faraxsan tahay in 30 sano kadib la arkay nabad ka hana qaaday Soomaaliya taasoo ay la jeedaan in Soomaaliya ay yeelatay ciidamo xuduudaheeda ilaalin kara bayaankan oo ay ku siixneed haweeneyda afhayeenka ka ah madaxtooyada Kenya Kazni Dana Mararo ayaa lagu sheegay in Kenya ay rajaynayso in laamaha ammaanka ee Soomaaliya oo isugu jira heer federaal iyo heer maamul goboleedba ay iska kaashan doonaan sidii looga adkaan lahaa argagixisada halka ay iska dagaali lahayn laba dal oo walaalo ah waa sida qoraalka lagu yiri hadalka ka soo baxay dawladda Kenya ayaa yimid kadib markii dhawaan ay dawladda Soomaaliya ay soo saartay war-saxaafadeed ay ku sheegtay in Kenya ay si joogto ah u wado xadgudub ka dhan ah madaxbanaanida Soomaaliya wali Soomaaliya kama aysan jawaabin warkan ugu dambeeyay ee ka soo baxay Kenya xiriirka labada dal ayaa heerkii xumaa gaaray sanadkii la soo dhaafay kadib markii uu soo cusboonaaday muran la xiriira lahaansho qaybo ka mid ah Soomaaliya oo ay Kenya sheegatay xiriirka Kenya iyo Soomaaliya ayaa xumaaday kadib markii Kenya ay Soomaaliya ku qabsatay badeeda hase yeeshee maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda adduunka ayaa lagu dhursugayaa go'aanka ay ka soo saartay dacwadda la xiriirta arintani oo ay hore ugu gudbisay dawladda Soomaaliya muddooyinkii la soo dhaafay waxa socday dadaalo la isugu soo dhaweynayo labada wadan iyadoo door muhiim ahna uu ka ciyaarayay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed hase yeeshee madaxweynaha Soomaaliya ayaa diiday wax gorgortana inuu kala galo Kenya dhulka ummadda Soomaaliyeed iyo waliba badeeda dhanka kale tana
kenya ayaa lagu wadaa in maalmaha yar ee soo socda ay bilowdo wadahadal ku saabsan sidii ay ciidamadeeda ugala bixi lahayd soomaaliya gaar ahaanna howlgalka midowda afrika amisom sida uu ogaaday waddanka t v wadahadalkan oo ay hogaaminayso wasiirka gaashaandhigga monica juma ayaa qayb ka ah qorshaha ay guud ahaanba amisom uga baxaysa soomaaliya ee kaasoo loo qorsheeyey in ammaanka dalka lagu wareejiyey ciidanka qaranka soomaaliya wadahadalkan ayaa dhanka kenya lagu wadaa in 8 sannadood oo ay ciidamada KDF ku jireen gudaha soomaaliya kaasoo ay dowladda dalkaasi ay ku doodayso in ay yaraysay weerar argagixiso oo ka dhaca gudaha Kenya walow ay dhaceenba weeraradii ugu badnaa iyadoo indhaha argagixisada isku soo jeedisay KDF ayaa gudaha soomaaliya u gashay habeenimo 16 Oktoobar 2011 iyagoo ku socda qorshe qaran oo ay Kenya leedahay oo waxyaabaha ku qorna ay ka mid ahayeen in ay Jubbaland u adeegsadaan sidii meel ay ka taliyaan si ay uga gaashaantaan weerarada argagixisada sida ay sheegeen Kenya ayaa wixii markaasi ka dambeeyay cayrsanaysa siyaasad halis ku ah soo kabashada Soomaaliya iyadoo iska hor keentay dadweynaha deegaanada ay ka joogta Jubbaland weeraran ku qaaday kaabayaasha isgaarsiinta duqeymaha cirka ah oo ay rayid ku dhinteen geysatay lagu eedeeyay in ay iska qaadato dakhliga dekada iyo waliba garoonka Kismaayo isla markaana dhistay maamul iyada ka amar qaata taasoo ah arin aan lagaga soo dhaweynin dhanka dowladda dhexe ee Soomaaliya dhanka kale tan dowladda Pakistan ayaa ballan qaaday in ay Soomaaliya ka caawinayso tababarka ciidamada cirka gaar ahaan dhanka dayuuradaha dagaalka ee kala gadisan taliyaha ciidanka cirka Soomaaliya Sarreeye Guuta Maxamed Sheikh ayaa kulan uu la qaatay dhigiisa Mujaahid Anwar Khan oo ay isku arkeen caasimadda dalkaasi ee Islamabad maanta oo Khamiis ah waxay iskula soo qaadeen arrimo dhowr ah oo la xiriira istiraatiijiyadda ciidan ee labada dal labada nin ayaa isla gaaray in dhowr tilaabo hore loogu qaado dhanka ballaarinta iyo waliba xoojinta xiriirka labada dal gaar ahaan dhanka ciidamada cirka ee labada dal ee Pakistan iyo Soomaaliya taliyaha ciidanka cirka Soomaaliya ayaa ciidanka cirka Pakistan ku amaanay taariikhda sharfan ee ay leeyihiin iyo waliba sidoo kale sida ay u cusboonaysiiyeen una maxalliyeen farsamada qalabka ciidankooda sanadihii yaraa ee dambe taliyaha ciidanka cirka Pakistan Mujaahid Anwar Khan ayaa isna taageero iyo waliba iskaashi u fidiyay ciidamada cirka Soomaaliya oo u baahan dib u dhis ballaaran iyagoo ballan qaaday in ay tababari doonaan duuliyaal aad u xirfad sareeya ciidamada dalaayadaha ku booda iyo waliba xirfadayaal kale oo ka shaqeeya dhanka cirka dhanka kaleetana waxaa meel wanaagsan maraya dayactirka ku socda garoonka Stadium Muqdisho oo ah dhismaha ugu muhiimsan tuulada ciyaaraha ee Stadium Muqdisho oo sidoo kale ka mid yahay garoonka kubadda koleyga iyo kuwa kale waxaa haatan la bilaabay dhigista cawska macmalka ah kaasoo ah wajiga ugu dambeeya ee ka haray dayactirka garoonka qaybta kubadda cagta iyadoo kadib toos loogu ciyaari doono waxaa cawskan iyo farsamada la socotaba bixinaya xiriirka caalamiga ah ee kubadda cagta ee FIFA oo sidan oo kale garoomo kale oo caasimadda ku yaala cawskan u sida garoonka qadiimiga ah ee Konis dhanka kale tan dowladda Sweden ayaa dhintay filashadii ku saabsaneed koritaanka dhaqaalaha Sweden oo iminka hoos u dhacay 3% sida ay sheegtay wasiirka maaliyadda Magdalena Andros oo shir jiraa'id qabatay cudurkan ayaa horaanba saameyn xun ku yeeshay dhaqaalaha dalka Shiinaha iyadoo ay hay'adaha caalamiga ah ee iskaashiga dhaqaalaha ka dhigtay inuu sidoo kale saameyn karo dhaqaalahooda caalamka guud ahaanba waxa ay hay'adani saadaalisay in kobaca dhaqaalaha ee caalamka oo markii hore la filayay in uu koro 2.9% oo iminka kobci doono 2.4 wasiiradda maaliyadda ee Sweden ayaa haddaba ka hadlaysa saadaasha ku aadan xaddiga kobaca dhaqaalaha Sweden ee sanadkan 2020 dhowr shirkadood oo Swedish ah gaar ahaan kuwa waaweyn ayaa adkeeyay safaradii dibadda cudurka coronavirus dartii tusaale ahaan shirkadaha dhismaha ee Sankara ayaa iyadu haatan joojisay safaradii dibadda oo dhan dhanka kaleetana madaxweynihii hore ee Mareykanka Joe Biden ayaa guul weyn ka gaaray doorashada isreebreebka xilka madaxtinimo ee xisbiga dimuqraadiga Mr Biden oo tartan xoogan kala kulmaya Bernie Sanders ayaa guul dahabi ah ka gaaray 9 gobol oo kamid ah 14 gobol oo ay ka dhacday doorashada warbaahinta Mareykanka ayaa halku dhig uga dhigtay doorashada talaadadii weyneed ee Mareykanka labada nin oo ku loolamaya murashaxa caalanka u sidi doona xisbiga dimuqraadiga doorashada dhacaysa bisha November ayaa kala wata qorshayaal kala duwan siyaasiga Joe Biden oo ka hadlaya guusha uu ka soo hoyay gobolada waaweyn ayaa sheegay in Mareykanka u baahan yahay isbedel isagoo intaasi ku daray in Bernie Sanders uu yahay qof da' ah si la mid ah madaxweyne Donald Trump Mr Sanders oo loolan adag kula jira
Biden ayaa si la mid ah sanadkii 2016 hogaaminta xisbiga dimuqraadiga kula loolamay Mr. Hillary Clinton. Inkastoo gobollo kale ay dhiman yihiin ayaa bishii July waxaa la kala saari doonaa murashaxa xisbiga dimuqraadiga ee la tartami doona doorashada bisha November ee sanadkan 2020. Madaxweyne Donald Trump oo matali doona xisbiga jamhuuriga. Dhanka kale tana madaxa sirdoonka dalka Masar Abbas Kamal ayaa bilaabay socdaal rasmi ah oo uu ku marayo dhowr dal oo Carbeed iyadoo uu jeed ku yahay in la saxiixo heshiis amni oo ka dhan ah saameynta madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu ku leeyahay gobolka. Warbaahinta gudaha Masar ayaa ka soo xigatay ila sirdoonka ciidamada Masar ay dib uga soo guranayaan Liibiya waxa ayna intaasi ku dareen in ay Turkiga ku cadaadinayso inay joodiso saameynta ay ku leedahay waqooyiga Afrika. Toddobaadyadii dhowaa Kamal ayaa booqday dalalka Suudaan, Algeria iyo Morocco waxa uu Suudaan kala hadlay in dagaalyahano dheeri ah ay u soo dirtay Liibiya. Dowladda Algeria oo hogaaminaya madaxweynaheeda cusub Abdelmajid Tebboune ayaa dhawaanba lagu waramay in ay walaac ka muujisay xaaladda Liibiya. 5 Febraayo wasiirka arrimaha dibadda Sabri Bogadom ayaa la kulmay generaalka fallaagada ee Liibiya Khalifa Haftar si uu ugala hadlo xaaladda Liibiya. Kamal ayaa sidoo kale mas'uuliyiinta Morocco kala hadlay in Ankara ay taageerto dhaqdhaqaaqa Islaamiga ah ee ka soo horjeeda dowladda dalkaasi. Xiriirka Turkiga iyo dalalka Carabta ayaa sii xumaaday kadib markii ay dhawaan ciidamo geysay dalka Liibiya si ay u taageeraan dowladda dalkaasi oo wajahaysa weerarka kaga imaanaya General Khalifa Haftar. Dalalka Masar, Sacuudiga, Imaaraadka Carabta, Suudaan iyo Algeria ayaa ka mid ah dalalka taageera generaalka fallaagada ah. Dhanka kale tana dowladda Turkiga ayaa weerar culus ku qaaday saldhigyo military oo ay lahaayeen ciidamada dowladda Syria ee daacadda u ah madaxweyne Bashar al-Assad. Weerarka oo ahaa duqeymo ayaa waxa ka dhashay khasaare xoog leh oo gaaray ciidamada dowladda Syria sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga Turkiga. Wasaaradda gaashaandhigga Turkiga ayaa xusay in ay weerareen 82 xarun oo ay lahaayeen ciidamada Syria kuwaas oo ay ku yaalay gobolka Idlib. Wasaaradda ayaa intaasi ku dartay in ay duqeynta ku baabi'isay 299 ka mid ah qalabka military ee dowladda Syria. Duqeyntan ayaa ku soo aadaysa xilli dhawaan ay dowladda Turkiga duqeymo ay ku dileen in ka badan 2,000 oo askari oo ka tirsan ciidamada Syria sida ay sheegtay dowladda Turkiga. Turkiga ayaa horay ugu hanjabay in ay ku argudan doonaan ciidamada Syria oo duqeyn ku dilay 34 askari oo ka tirsan ciidamada militariga Turkiga. Weerarada dowladda Turkiga ayaa loo adeegsanayay diyaarado drone oo caalami ah oo beegsigooda saxda ah iyo waliba teknolojiga ay adeegsanayaan ay ka yaabiyeen caalamka. ugu dambeyn militariga Mareykanka ee ku sugan dalka Afghanistan ayaa duqeymo dhanka cirka ah ka geystay gudaha Afghanistan sida uu xaqiijiyay afayeen u hadlay Arbacadii. duqeynta ayaa timid maalin kadib markii Donald Trump uu qadka teleefanka kula hadlay hogaamiyaha Taliban. duqeynta Mareykanka oo la sheegay in ay dhacday 4 bishii Maarso oo ku beegnay Talaadadii ayaa ka dhacday degmada Nehar ee Sharaj oo dhacda gobolka Helmand. afayeenka militariga Mareykanka Colonel Sonny Lekad ayaa ku tilmaamay duqeyntani mid isdifaacid ah waa sida uu hadalka u dhigay. weerarka Mareykanka ayaa imaanaya 11 maalin kadib markii dowladda Mareykanka iyo ururka Taliban ay gaareen heshiis nabadeed oo lagu soo afmeeraya dagaalkii 19 sano ka socday waddanka Afghanistan. diyaaradaha Mareykanka ayaa sidoo kale duqeymo ka geystay dhowr degmo oo ku yaala gobolada waqooyi. qodobkaasna wuxuu u dambeeyaa warkii waddanka. intii aan ka gaarayna warka iyaga xiga waxa aan kaga tegaynaa daawadayaal guul iyo gobonimo.